waxaan booqday Shabeelley oo ah meel aad u qurux badan una fiican jawiga hadday noqoto indhaha iyo hadday noqoto jawiga kalaba. Qaybta biyo dhaca ee hadda ku muuqata waa qaybta aad u qurux badan ee dadka dhan wala daneynayeen in ay fadhiistaan. Qaybtan waxaa ka soo baxaya neecaw aad u qabow, aad u udgoon iyo magaranaysaay dhismaheeda qaabka loo nashqadeeyay iyo qaabka loo dhisayba. Waa goob aan aad uga helay oo aad u qurux badan. Meeshii aan ku ogaa buuro iyo dhagaxyaan ayaa waxaa laga dhigay meel aad u qurux badan oo jawi lagu qaato. Hadday lamaano noqotiyo hadday kaliya noqotoba loona baahan yahay inaad booqato kuna soo qaadato nasiimo. Intaa wixii ka dambeeyay waxaan u kurgalay inaan soo maro qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay qaybtan aan hadda joogno ama ku muuqata. Qaybta ka koraysa waxaa ku yaala 2 shabeel, meelo kalena ay ku yaalaan oo aad u qurux badan shabeelladan. Hadda korkan kore aan saaranahay mooyaane qaybta ka hooseyso kale ka jira saas. Xagga ka hooseeyana waxaa lagu soo dhaweynayaa dad ayaa lagu soo dhaweynayaa oo maalintaani goobtan booqashadu kama dhammaato. War shabeelka ma yaqaaniina ama shabeel sidiisiya. Waxaa ka socota dhaanta yar baa ka socota oo soo dhawaada ayay leeyihiin. Aan laftarkaygu xubadaba ay qaato dhaantadeeda ayaan saasii watay. Waxaan iska yaabay saan u dhaanteynayay. Intaa ka dambeeyay ma garanaysaayay halkan waxay noqotay inaanu jawiga kore ka duubno aan ku qaadano. Saacadaan tagay iyo saacadaan ka soo tagayna aad iyo aad ayay u kala fogaayeen. Markaan barto ma garanaysaay hadda dhinaca shabeelkaan ka taaganahay mooyaane dhinaca kaleeto meesha waxay ka kooban tahay 3 tuulo. Tuulo waa haddaan tan joogo ma garanaysaay tuulo kaletana dhinaca sheeka xitaa 3 tuulo ayaa hadda gabagaba ku dhow. Hadda tuuladii koowaad weli dhismaha ka socdo waa VIP-da weeyaan. Taas weli lama furin in la soo booqdo. Tan kaleeto kuwan kaleeto laakiin waad booqan kartaa oo maskaxda waad ku soo dejisan kartaa. Waa meel jawigu ku habboon yahay quruxda doogga ka baxay oo kale markaad fiiriso aad iyo aad ayuu u qurux badan yahay ayaan leeyahay. Marka hadda cawskan dhex socdo kale waa caws aad iyo aad u qabow, aad iyo aad u nadiifa ma garanaysaay. Goobta haddaan ku soconana magacii Shabeelley ayaa ku xarnan. Waxaa ku qoran xarunta dalxiiska ee Shabeelley ayaa ku qoran. Ruux walbana wuxuu danaynayay inuu halkan sawir u galo. Dadka u jeedo dhan dhammaantood nin walba sawir inuu ku galo ayuu halkan u yimiday. Marka insha Allah taala haddana hoos ayaan u daadegi doonaa oo garanaysaay hoostaa kale ayaanu isla soo fiirin doonaa. Saaxiibayaal soo dhawaada insha Allah nala socda muuqaalka ilaa iyo dhammaadka. Hadda xilligan markaan duubayo biyaha lama soo degnin baaxid oo banaanka ayaan biyaha ku sugaynay. Biyaha ayaan banaanka ku sugaynay oo garanaysaay ayaan joognay. Haddaad fiiriso kale fiiri jawiga 2 roob 3 roob la joogaa. Jawiga meel aad degan buuqmale shimbiraha codkooda baad ismaqlaysan. Adiga codkaaga iyo codka shimbiraha. Intaa wixii ka dambeeyay waxay noqotay saaxiibayaal inaynu iska soo dhalmano oon u diyaar garowno inaanu ka soo tagno tegitaankeennii ma garanaysaay iskasi bilaabano oon xagga iyo gaadhigeennii iskaga dhaqaaqno. haddana insha Allah taala waynu iskasii filman doonaa ilaa iyo magaaladeennii jigjiga ahayd ayaynu iskaga sii dhalman doonaa. laakiin si walba ay ahaataba haddana marnaba meesha niyadaada kuma dhahayso war meeshana meel laga tago. waxaa ka dhigday qaabka loo dhisay iyo qaabka loo nashqadeeyey waa qaab loogu talagalay meel niyadu inay ku degsato loogu talagalay. niyadaada ma garanaysaay qabowgeeda oo kale meesha neecawdeeda waxay saarantahay meel buur ay saarantahay magaalada jigjiga waxay u jirtaa 25 kilomitir. adigana waad booqan kartaa waqtina waa kusoo qaadan kartaa. waxaan ku leeyahay magaalada jigjiga buuqeedana oo ku jirin bal fadlan waxaad samaysaa banaanka inoo soo saara aynu soo booqano ma garanaysaa. haddii la dhahayo hotel baa laga sameeyena waxaan ka yaaba lahaa inaan dhaho bal week fasaxa la raadiyo san wiiga fasaxayga aan ku qaato. wow. saaxiibayaal muuqaalkan muuqaalka ku xiga ayaanu ku kulmi doonaa.
waxaan kaga tagayaa saaxiibayaal pageka ama youtube-keena fadlan nagu caawi like-ta share-ta subscribe-ta ku salaamaya saaxiibkay Ayun, ano ka na,